xilli abaara maqribkii gabaldhicii baa dalka Turkiga waxaa ka dhacay afgambi horey loo soo qorsheeyo sameeyeen qaybo ka mid ah ciidanka dalka Turkiga qaybtiisa militariga afgambigaas oo ilaa xalay ilaa maanta ka socda dalka Turkiga ayadoo ugu dambeynna laga guuleystay kooxdii yarta ee soo abaabushay afgambiga run ahaantii dhammaan shacabka dalka Turkiga iyo Soomaalida ku nool wadankaanba xalay waxay ahayd habeen aad iyo aad u dheer habeen cabsi badan habeen wadanku uu ku sugnaa xaalad aad u adag diyaarada fara badan baa hawada ku jiray oo qaar duqeymo sameynayeen askar fara badan oo u badan ciidanka militariga ah waa wadooyinka dhoobnaa dadka ku amray inay kala xaroodaan booliiskii baa lagu amray inay ka hor imaadaan militariga iyo inqilaabka dadka sameynaya shacabkii oo malaayiin ah baa wadooyinka dhoobnaa xalay xaalad aad u qasan oo aad u adag baa ka jirtay dalka Turkiga khaasatan labada magaalood ugu waaweyn oo Istanbul iyo Ankara run ahaantii wadankani xilli muddo 20 sano ah ka hor baa waxa ugu dambeysay inuu ka dhaco afgambi rasmi ah oo in dalka lagu wareegayo la sheego kaas oo markii ugu dambeeyay afgambi mid u eg oo ah u digniin loo digayo xukuumadda Najmuddin Erbakan ra'iisul wasaarihii 1998 ugu dambeysay lagu leeyahay inuu iskaga dago awoodda dalka haddii kan la inqilaabayo asagoo go'aansan inuu markaa iskaga dago xilka kadib 96 kadib wadankani afgambi rasmi ah oo la sheegi karo ma ka dhicin lamana qorsheenin ru'aantii ciidanka 2000 iyo wixii ka dambeeyay sida uu la wareegay maamulka iyo hogaaminta talada dalka xisbiga Akbarti ama AK Party uu hogaamin jiray wasaaraha dalka madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo hadda madaxweyne ah xisbigiisu dalka ula wareegay waxaa bilowday horumarin iyo packet ah democratic packet oo Europe laga soo saaray oo dalka Turkiga laga dhaqan geliyo oo ah in laga saaro talada dalka militariga banaanka looga saaro talada dalka dadka shacabka iyo dadka dimuqraadiyadda codkooda la baxay ee talada la wareegan militarigana talada dalka uu ka baxo kale laakiin uu ka ekaado difaaca dalka xilliga wixii ka dambeeyay dhammaan militariga waxay ku ekaayeen kaliya difaaca dalka xuduudaha laakiin xalay wax aan la filin aad iyo aad u adag in laga fakaro xataa ay adag tahay baa dalka ka dhacay bugün ben söyleyeceğim. Barcada Kismaayo Istanbul Ankara weyn Soomaaliya Turkiga waxaan leenahay walaalo waligood yaallood iyo jabin ha noolaadaan ha guuleystaan caruurtan aadka u daada yar imaamooyinka u dhashay wadankan ayaa qayb lixaad ka qaadanaya dibadbaxa iyagoo wata fanaanadaha calanka ay ku sawiran yihiin caruurtan oo ujeedaan waxay u dagaalamayaan isla markaana u dhimanayaan wadankooda sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa muuqaalo kala duwan iyo goobo kale aan tagi doono intaan ku guda jiro barnaamijka gaarka ah maanta waxaan meesha ka dhacay dibadbax aad u ballaaran sida arkaysaan annaga arday haddaan nahay weliba kaasadan ardaydan Ankara ku sugan haddaan nahay waa ka qayb qaadanay saa u jeedaan hadba waxaa sii kordhaya soo badanaya shacabweyne aad u fara badan oo isugu soo baxaya goobaha muhiimka ee wadanka Turkiga waxayna ku muujinayaan taageero ay u hayaan dawladda waalaha aan nahay dalka Turkiga magaalada Muqdishona sidoo kale waxaa ka soconaya banaanbax ka lamid ah oo lagu taageeraya madaxweynaha dalka Turkiga iyo shacabka Soomaaliyeed kuwaas oo ku dhiirigelinayna dawladda waalaha nahay dalka Turkiga ardayda Soomaaliyeed wax ka baratana magaalada caasimadda Ankara si lamid ah sidaan ay banaanbaxyo gaar ah u sameynayaan iyagoo muujinaya dareenkooda sida uu yahay كوثر ميديا مرحبا السلام يا dalka Turkiga aan joognaa صباح بلارنا وجدان waxa uu ka tusaale yahay sida dalka Turkiga ay garab taagan yihiin dawladdan iyo daawadayaal sida warbixinadeena aad kala socoteen shabakada Kawsar Media oo idin soo tabinaysa xaaladda sida ay tahay maanta caasimadda Ankara ee dalka Turkiga hadda waxaan soo gaaray waan ku suganahay Kislay oo ah bartamaha caasimadda Ankara
halkan waxaa hadda iiga muuqanaya bulsho weyn aad u ballaaran oo isugu jira rag iyo dumar kuwaasoo wata calanka Turkiga oo hadba dhan ululaya sidoo kale waxay ku dhawaaqayaan Allahu Akbar dhammaanna waxay yihiin kuwa aad markaa u taageersan madaxweynaha dalkan Turkiga Rajab Tayyip Erdogan shacabka ayaa shucuurtooda aad u kacsan tahay gabi ahaanba maanta waxaa xaniban goobaha ganacsiga iyo waliba xawaaladaha iyo bangiyada ku yaalay agagaarkan socodka saaka waxa uu yahay mid dhinaca ganacsiga hakad ku jira kadib markii shacabweynaha oo dhan iyo waliba ganacsatada iyo guud ahaan shaqaalaha dawladda u shaqeeya isugu soo baxeen goobaha taariikhiga ah iyo meelihii xalay dhibaatadu ay gaadhay dalkan Turkiga ka tirsan lixdameeyadii sidaas bay u dhacday 8 saas u dhacday waxyaabo badan ay sheegi jireen waxa ugu badan in wadanka maamulkiisu gacanta ka baxayo oo dad u qalmin ay hayaan laakiin afgambiga hore uu ka duwan yahay haddaan dib u noqono 2000 markii madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu aasaasay xisbiga AK Party ama cadaaladda iyo horumarka dalka Turkiga uu aasaasay kadib waxa bilaabay packet la dhaho Europe Democratic Party packet la dhaho oo looga sifeenaya dalalka Europe ku abtirsada ama Europe inay qayb ka yihiin sheegta taladooda looga sifeenayo militariga oo militarigana laga dhigay kaliya military difaaca dalka maamulkana uu haanayo maamul ama xukuumad shacabka soo doorteen 2004 ilaa 2007 waxaa si rasmi ah gacanta looga faaruujiyay ama laga sifeeyay dalka Turkiga saraakiishii ama ciidanka oo waxa la soo saaray xataa qaanuuno sheegaya in ciidanka gabi ahaanba si walba ahaatay ayna sameyn karin afgambi ayna sameyn karin kaliya ay ku ekaan karaan in la sugo 5 sano ee xukuumadda laga siiyay inay wadanka maamusho kadibna ee shacabku ayaga cod bixin sameeyaan oo cid ay rabaan doortaan militarigana batatan wax afgambin sameyn karin marka maxaa xilligan ku soo aadiyay see u dhacday yaasa ka dambeeyay sida idin sheegay waxa meeshan role aad iyo aad u weyn ama yani mug aad iyo aad u weyn ka ciyaaraya wadaadka la dhaho Fatxullaahi Guulaan oo leh urur diimi ah oo lagu magacaabo Fatxullaahi Guulaan lagu magacaabo dalka Turkiga ku leh ururkaas ah urur aad iyo aad u weyn ururkan oo asagana sidoo kale islaami ah xilligiisa horena la jiray dawladda Turkiga laakiin xilli dambe isku khilaafeen talada wadanka iyo qaabka loo maamulayo marxiim halkan ku sugannahay waa meelaha ugu caansan caasimadda dalka Turkiga ee Ankara waa Kislay waa mid kamid ah taangiyadii askartu ay ka qabteen shacabka dadweynaha markii amar uu ku bixiyay madaxweynaha dalkan Turkiga sida aragtaan dadweynuhu shucuurtooda aad bay u kacsan tahay waxay soo bandhigayaan juhdiga iyo dadaalka ay ku bixiyeen si ay uga badbaadaan xukun military oo wadanka qabsada warbixinada dambe iyo goobaha dambe maxaa ay tahay la socodsiin doona la socod wanaagsan Productions.